بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما وذرا بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما كثيرا فيها ابدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من المشاهدين والمشاكرين ولا على صوم الادب الاسلام يا جلال كان او معناها شهوه جلال kusoo dhawaada walaalaha Soomaaliyeed meel ba joogtiin isgaarsiina meel ba joogtiin walaalaha Soomaaliyeed anigu mar walba waxaan jeclahay inaan isu gudbiyo jalalkan maarta qaabka ay u jeceshiin haddana waxaan rabnaa inaan ka hadla duweynaha wax ka dhacay macnaha waddanka waarta abaar badan ka dhacay dadkii maarta aad u dhibaataysan yihiin marka anagu mishiinaangeena magaalada Muqdisho aan ugu talagalno dadka Soomaaliyeed lagu caawiyo anagu sanadkan waqtiga waxaan caawinayna marayna Soomaaliyeed macnaha mishiinadaas aan geeyna aan ugu talagalno dadka Soomaaliyeed lagu caawiyo waa dadkii hooyinka ah ma fahamta hooyinka mishiina waxay waayeen ay macnaha isheeg macnaha mishiinkan eerka mishiinkan anagu waddankan ka sameeynay qaarna ilaa Mareykanka ilaa waddanka Ingiriiska ka sameeynay macnaha dadka Soomaaliyeed waxaan gaarsiino macnaha ugu tabarucno dadka Soomaaliyeed marka waxaan rabnaa inaan sheegno in dalkeena uu baahan yahay maanta in mataqaana dadka Soomaaliyeed macnaha corona kama naac corona kama naac karfanaa waa karfantaada waa wada corona karfanaa ee corona kama naac ana corona waa ka faalooday maadaama dhaqtarna aan Soomaaliyeed ilaa Hindiya wax ku bartay bil meeni sheegay 7 sano oo dhaqtarnimo aan bartay mar walbana waddankan aan dhaqtarnimo ku hawlgalaa bil meeni sheegay laakiin dadka Soomaaliyeed qaybta xasinimada u shaqeysa anigu waxiga waa la dhuntaa macnaha laga hadlayo ma fahamta anigu waxa waa dawladdan anigu way aaminsiin ma fahamta waxa aan qoro lama soo celiyo marka waxaan ka hadlaa waxay tahay walaalaha Soomaaliyeed nin walba saa isjecel ma fahamto waddanka qof walba qaabka u hadlay asaga yaqaan marka waxaan rabaa inaan sheego aanu arabe barnaamijka hal isgaarsiyo macnaha walaalaha Soomaaliyeed baa joogta hal isgaarsiyo anu waxaan jeclaa dalka Soomaaliyeed in wax loo qabto aan jeclaa mar walba anu wanaagina aan jeclahay macnaheedu waxay tahay wanaag hadii dad naftaada waxa la jeceshaa walaalkan wala la jeclaada anu waxaan jeclahay dalkeena Soomaaliyeed marka arkay in maartay dhibaato badan waddankii dhibaato badan ee barnaamijyo badan iyo hawlo badan waddanka ay ku furiyiin in aan waddankan macnaha jaarati aan u sameeyo oo dhaqaalaha aan gaarsiiyo oo dhulkii Soomaaliyeed macnaha mar walba aan isku dayo in dadka Soomaaliyeed ay helaan mishiinada yarka oo caatadaha dadku u dhimanayaan mishiinadan xunka ilaa hadda kontri la mishiinaan geeyna hadda anaga magacaana ku qoro anaga cid aan dhaqaale uga rabnaa ma jirto dawladda aan aragtay anaga dhaqaale uga marno because macnaheedu waxay tahay dawladdu wixii ay loogu talagalay hadii azinka ay ka dhigayaan anagu ma aragtay dadkeena oo waa ilaashanayna si bareefadaan dadkeena oo ilaashanayna because qaabka ana u shaqeysaas waay because waxa waa isbitaalo badan waxa jiro anaga daawooyinkeena ay yaalaan dadka Soomaaliyeed qaab aan macnaha ma taqaan oo ogaano badan jirto hadii adiga dawladnimadaadi ay gaarsiin weyso dadku waxa loogu talagalay ilaa ay galmudug ilaa ay hirshabeelle ilaa ay mataqaana isha ilaa ay beedhaba jannaay ilaa ay dadkii marka laga soo sheegay la leeyahay warbishinadii dadku kuma filna anagu dadkina inaan wax gaarsiin xaq u leenahay ilaahay wuxuu yiri yaa alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara waqudaha nas wal hijaratu alayna al malaa'ikatu mar walbana dhinaca diinta anagu kama natiguna waxaan jecelahay dadkeena Soomaaliyeed meesha ay ku nool yihiin ogaano meel walba ay tahay eeladeeni waa meel walba joogan ama Soomaaliland ha joogan ama ha joogan galmudug ha joogan ama ras asir ama ras gamboor ilaa Kismaayo ilaa meel walba ha joogan anagu dadka Soomaaliyeed mideen noo yihiin ninka Soomaaliga waa dhashaan Soomaaliyeed nuka haduu heelisa goru ilaashana asaga u taala macnaheedu waxay tahay qaab maartay inta waajibta eerada loo ilaaliyo laakiin anaga hadda qaabkan u shaqeynayna waxay tahay qaab aan Soomaaliyeed oo dhan rabna inaan ilaalino oo dhexda asku keeno laakiin cidii darma jirta ninku eelada ilaaliyo habeenada waxa arkay barnaamij madaxweynaha ugu soo qatay eeladiisu ilaaliyo ونكو إلك يصير ولا عدم بديتنا معناه وحتى إلك ولا باهي الله يلاليه وهو الرأي الودي بنكو إليز ما كسرنا مع ذواي أنا مركي كو إذا عدها هنا في إذا عدا كينا ولا لا من اللي عليه بشر ماكو ولا لا أنا يعني إذا عدا جينا ماشي مقالة مقدوش جينا مركي إذا عدا هذه مقدوش إذا عدا سكده ميسر مركي سالي يروح إنه كان عاود إنه هذا فوضى وايد ذاتك عندها بس عارف فوضى كان فوضى وحواي ذاتك كان عقب ترجع الله مرة بحاسود يا ذاتك أنت مرة عاضو أو كبهنا كعيو أو كوا وضلا جيفو أو كولد عباية كوا قمرك عباية عن قد وتوسي أنا ولا بمحوك نوري عيران maalin walaalkay asku dagaal anoo saas u qaaday warka marka aan kumisaasha la guriga geena jooji markaas ma ku ilaahay waa ku noolay ilaahay markuu ku dhalinaay hal qof ku dhaliyaay adoo qaawan waa ku dhaliya laakiin aniga ilaahay markuu dhalinaay ina 500 qofood noqdo 500 kalarna ay yeeshay ilaahay bedelaay maanta ninkaas sidaa ka tagtay bariis waxaan ku guriga ku dhex dhima kartaa dadka ay ilaalino markaas uu yiri niyow hadii aad ilaalinayso guriga gurigayga geey ana wata 13 ina soo saarta baa gurigayga geey wali aan cuntada cunaay hadhoodina koola wala ka hareyn يا لعتها أسيا كلها كعبديني دركوا قطع مركب حواي دتك هدان إلى دتك Soomaaliyeed وحواي Soomaaliyeed دتك إلا إلى مهم واي ما أنت channel كان وكوفا إيديس Soomaaliyeed وحكاه له يقابك دتك الله إلى لها ما أنت كفا إيديس دتكنا ولا لها وحبرت رجع بدر على يراه ومثل دقري ودتك كلها جيران لكن مركب جدال الله فيريو وحواي دتك Soomaaliyeed أيها كلاباس برنامج اللي يراجع يلا كلا باسم معناها نك walaalka wuxuu ku dheeryahay waana u qareetid macnaheedu waxay tahay ninku haduu diin ku dheeryahay waana tira ninka sabil meel ku fiicay nin walba wuxuu ku fiicay nin makaan ku fiicay nin biyo ku fiicay inuu biyo oo dadku u geeyo ku fiicay nin wuxuu ku fiicay Coca-Cola inuu dadku u geeyo nin wuxuu ku fiicay cuntada inuu kariyo nin wuxuu ku fiicay waa hadal macaayo nin hadal macaan hadalkiisa soo raacay nin waa nin dagaal dooro Ethiopia hadii timad asaanaga celina marka dadka asku dhex wadnaa ku xumaa ku fiicnaa inta hadii ku fiican la qaato ku xumaa xagee aadayaan marka Soomaaliyeed
marka anaga inta naga maqnaa waxay tahay aqligoona ma shaqeyn hindida aqligooda u shaqeeyay maanta ninka hindiga wuxuu ku talagalaya badroole inuu samaysto kan walaalkiisa oo la shaqeynaa badroolana u furo ku fakarayo laakiin adiga waxa ku fakaraysaa ninkan walaalkaa kula shaqeynayo inuu waxala ma rabtid ba adiga waxa rabtaa wixii walaalkaa u heli lahaa hebel waxa hadii lagu xanaaqay walaalkaa adiga kula dhashaa ka xanaaqay iska daa adiga nin kale oo ka dheer ba adiga marka waxa Soomaaliyeed anaga haysto waxay tahay qaybta xaasinimada nagu hebel internet furta internet ka taw furay hebel maqaas furta maqaal ka daba eli war anagu waxa waa Soomaaliya anahay walaalayaal oo aan sugaano macnaheedu waxay tahay maanta hadii aad wanaagsan tahay ilmaha ay wanaagsananayaan hadii aabba xuna taa aabba xuna ilmihiisa waxa xanuunsadaan been ma ku sheeganaad ku sheegay ilmaha sidee bilaa aabbu markuu fiican yahay wanaaga aabbaha ala fiirna bulshada sida uu ku yahay macnaha aabbu haduu wanaagsan yahay ilmahana isgaarsiin meel baa joogtiin walaalaha Soomaaliyeed iskaraab nasaara walaag nasaara meel meel sheegay walaalaha Soomaaliyeed barnaamijka aad u nafacaya barnaamijkan waa soo gaabi doona insha Allah dawladda organizational kan ku dheeraaday macnaheedu waxay tahay waxa la jeclaa wanaaga la jeclaa saa u dheeraanay wanaaga la jeclaay macnaheedu waxay tahay meesha laga socdaa ma fahamtaan ilaa muqdisho wax gaarsiinayo ma adinka inaan wax ka ilaahay Soomaaliyeed laakiin waxaan jeclahay inaan noolaatiin oo meel ay isku timaadino noloshiina iyo qaabka u noolaa sirta nolosha la intuso أنا وأنا كإكسبيرينس بهانا والله لا سومنا مركو هذا من شيء أنا شرط لاكت هلا بديو شرط لاكت هلا بديو هذا رتينا شرقرينا على لاك صاريننا ماشى محاوج أبو نسواد أبو رسالة هلو ما فهمت مركو أذوك مرة إن الذين كفروا وصدقوا على مسجد الحرام والهدي معكوف يملكوا محله ولا الرجال أذوك محاولوا قالت إن الرجال إلا هلو يقول أذكي سنة إلا جعلتين على جيابها مركو والله لا سومالي أدب إني سلام يا إن شاء الله لقتنا وكسول على رضونا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتي